السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha idin kasoo gudbinay gacantooy show. qodobada aanu ku eegi doono waxaa ka mid ah ciyaaryahan Benjamin Mendy ayaa lagu waayay wax dambi ah kadib markii lagu soo eedeeyay kufsi. sidoo kale waxaan ku eegi doonaa ciyaaryahan Lukaku oo laga yaabo inuu ku soo laabto kooxdiisii hore ee Chelsea. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena ciyaaraha. daawadayaal aynu ku bilowno ciyaaryahan Benjamin Mendy ayaa lagu waayay wax dambi ah kaasi oo lagu eedeeyay isku day kufsi ah. dacwadan ayaa socotay 2 sano. laacibkan Benjamin Mendy ayaa ah ciyaaryahan u dhashay Faransiiska wuxuuna qayb ka ahaa guushii koobkii adduunka ee 2018 ay qaatay xulka Faransiiska. ciyaaryahan Benjamin Mendy ayaa lagu waayay 6 eedeymood oo la xiriirinayo isku day kufsi. wararku waxay kaloo intaasi ku darayaan in ciyaaryahankan Mendy uu ilaa 2 sano aanu taaban kubad kadib markii Man City ay fasaxday kiiskan awgiis, balse heshiiskii uu kula jiray Man City ayaa ku ekaa bishii la soo dhaafay ee June, balse wax war ah kama soo bixin kooxdiisa. laakiin ciyaaryahan Benjamin Mendy ayaa isagu ka yaabsaday idaacadaha adduunka kadib markii ka soo baxay maxkamadda kuna dhawaaqay in wax caddayn ah lagu waayay lana fasaxay. laacibkan ayaa ilinta reeban waayay mar wareysi la isku dayay in la wareysto ayaa waxa uu ku jawaabay ereyga kaliya alhamdulillah. Ben taasi ayaa argagax ku noqotay wariyaasha oo wax kale uusan ku darin kana sugayay warbixin dheer. socodkiisiina hore u watay waxay wariyaashu ay isku dayeen in ay ka hadalsiiyaan, balse afkii ayaa uu ka xirtay hadalkiisiina waxa uu ahaa alxamdulillah. ciyaaryahan Lukaku Chelsea ayaa ayaamahan waxay ku cadcadahay suuqa kala iibsiga maadaama sanadka la isla hadal hayo lagana baqayo in Arsenal wacdaro ay ka muujiso kuna soo laabato dabacdaheedii wacdaraha ee lagu yaqaanay. sababtuna waxaa lagu tilmaamay haddii ay ku guuleysato la soo wareega ama la soo wareegitaanka ciyaaryahanada Rice, Timber, Havertz. Arsenal ayaa khalkhal gelinaysa Man City. weliba hadeer Arsenal waxa ay Man City ay ka doonaysaa hal ciyaartooy kaasina waxa uu amaah kula joogaa Bayern Munich, balse tababare Guardiola ayaa sheegay inay adag tahay in uu ka iibiyo koox Everton ay kala dhaxayso, balse ciyaaryahanka ayaa ikhtiyaar isagu u leh sida sharciga ah marba hadduu heshiiskii kooxda uu kula jiray uu ka dhammaado. wale sanadkan war baa yaala. waa tahay daawadayaal waxay kasoo kordha halkan ayaanu idinku soo gudbin doonaa warar xaqiiqo ah. nagu yimaada kusoo dhawaada like iyo subscribe-ka iyo share-ta weliba raaciya si warkan ay warar badan kale oo asxaabteena ay u sii gaaraan. saas iyo nabadgelyo. Get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores! De Bruyne! Benny hit by Saka. What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in!